ورحمة الله وبركاته أمد الصومالية دمان وسلامتين مسج كان والله المانتي إذا لشر قريني سفي عنو دقيستا أنه هاي warning يعني لأن هاي ورد دعي محل هاي Somali drivers هاي سلاليان. This was about a safety concern of Somali community. Yeah, إذا لشر قريني a lot of people are saying that محل هاي this is fake news, you spreading rumors. Honestly, we do not get anything out of this. محل هاي نجا. Whether you follow us or not, it doesn't do any good for us at all whatsoever. waxay la abuurtay oo aanu wax wanaag in la share gareyn iyo business iyo advices ma ogiye. We're not making any money from you guys. marka muhiimkeena wuxuu ahaa message-kaas aan idin ku soo diray ama aan idin la share gareeyay warbixin la soo share gareeyay aan rabina idin la share gareeyo. intaas ay ahayd. Everybody ha ilaaliyo next 2 days ninkii gurigiisa joogi karo ha joogo. ninkii raba inuu shaqaysto uu shaqaysan karaa waa xor wuxuu raba qofka bilaadna ku sameyn karaa anaga looma shaqaysin. We just wanted in message-kaas in la share gareyno. We did not want it to cause any panic whatsoever at all. faa'iido noogu jirto ma jirto. We just wanted inaan idin la share gareyno safety concern jirto. Washington DC ayaa waxay ilaalinayaan 25,000 National Guard. Yay ka ilaalinayaan. This never happened before. So xaaladdu way adag tahay. hal is ilaaliyo safety hala ahaado. gurigiina jooga for next 2 days maxay ka dhibe next after 2 days later waa shaqaysan kartaa haddaad nooshahay. marka muhiimka waxa weeye message-kan idin la share gareynay just to be safe and ilaaliya Somali community. That's all it is. wa salaamantiin dhamaantiin haddii aan idinka naxinay raalli ahaada. That was not our intention.